waxaan idinku soo dhaweynaa xarunta dhexe ee xisbiga midowga nabadda UPD ku soo dhawaada aadan ugu faraxsanahay barnaamijkan inaad nagala soo qayb gashaan xisbiga UPD wuxuu ka mid yahay xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jiro kuwooda ugu muga weyn guddiga golaha fulinta ee hadda jiro waa kuwa ku meel gaar ah shirweynihiisa waxaa la qaban doonaa hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah tacaala xisbiga bisha 3 March hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah tacaala aadan ugu faraxsanahay anigoo ah xogayay dhalinyarta inaan ku soo dhaweeyo dhalinyaro aad u fara badan oo aqoon-yahan ah oo gobolka Banaadir qaybihiisa kala duwan ka socdo xisbiga inaan galabta ku soo dhaweeyo runtii muhiimad gooni ah noo leedahay annaga laf dhabarti mujtamacana tihiin xisbiga dadku ku tashanaya tihiin waxa ogaataan dhalinyaro markii laga hadlaayo de boqolkiiba 75 hadda mujtamacan waa iyaga dadka hadda jaamacadaha ka soo baxayo ee magaaladan ku nool waa dhalinyaro dadka shaqo la'aanta ee heeso oo magaalada ku nool waa dhalinyaro waxaas oo dhan waxaan isleeyahay dhalinyarta enerjigooda iyo daaqadkooda hadii aan meel sax ah lagu jihaynin waxaan isleeyahay meelo kale aadayaan marka waxaan rajaynaa xisbiga midowga nabadda iyo horumarka inuu noqon doono meeshii aad maxaa la yiraahdaa enerjigiina aad ku bixi lahaydeen oo ku ifijaari lahaydeen meeshii aad wixii aad ummadan u barateen uga faa'iideey lahaydeen meeshii aad ku mumaarasay lahaydeen siyaasadda waan ogahay dad badan oo miyuul siyaasadeed laha jiro waad la socotaan wadankeena duruufo badan uu soo maray dagaallo soo maray 2000 markii la gaaro dawladda noo dhalata carta waxa lagu soo xulay waa ogeedeen oo de odayaal iyo xeer beegta isu tagay iyo civil society umba dawladdaas noo soo dhisay kadibna ergooyin umba soo dooranay dadka laakiin hadda waxa la aaday nidaam ka duwan oo aan rajaynayo 2020ga inuu noqon doono xisbiyada kala duwan marka qofku waa inuu meel uu ku tiirsan yahay oo xisbi uu ka mid yahay si uu u helo xaqiisa dastuuriga ah in isaga la doorto iyo inuu isaga wax doorto marka waxaan isleeyahay dhalinyarta fursad badan ayay u tahay inay maxaa la yiraahdaa inay ka heli karaan xisbiga inay maxaa la yiraahdaa ku barat kareeyaan qofkii raba inuu hoggaan noqdo qofkii wax ka faa'iideysanayo tababarada marka insha Allah tacaala waa inuu ku soo dhaweynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo barnaamijyo badan jiro aan u hayna dhalinyarta tababaro dood cilmiyeed iyo waxyaabo tiro badan waana rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad xarunta dhexe ee xisbiga midowga nabadda iyo horumarka